نيويورك مقدشة كان نبض بدن مع وحال قرحنية وحال دلي هدي الله يسوقي ما يلا يسطريو سيدا وحلود دلي انت دمانيسا انك وحير هدي ودنده انك دعان انك وين اخرنا وايو dadkeena media ku jira in badan oo kabidi waa uun inay hadlaan bay garanayaan wax ka dambeeyo kale ay garanayaan ma jirto 74 baa hal sano gudihii Mareykan lagu dilay wax sheegaya ma maqasheen shanta Soomaaliya lagu dilay ama tobanka lagu dilay laakiin idaacad oo dhan baa la qaylinay waxa la leeyahay meeshu nabad maaha keebaan nabada marka 74 intay sanad iska dilaan mid isagu isdilay iyo mid la toogtay ba inta la dilay ayaa waxa la oranayaa Mareykanku wadan horumaray oo wadan nabada waacinka innagana haday habari meel ku kufto maanta saddex abrood ba xamar ku kufay baa lagu leeyahay war maxaad ka wadaadu wax kasto balaaya dad balaaya sheeg oo aan wax samaa haba yaraatay sheegaynin i'laamku hadaba sidiisaba waxay dhahdaan kal ilmi weeyaan bay dhahdaan waa sayfun dhu hadayn waa seef laba af leh macnaheedu waxa weeyaan waa waxaad u isticmaasho إعلامك الدنيا جيالة ووسائل هداد وحكود من سنة وتكود من كرتا هداد وحكود لسه سوى لغود لسه كرا هداد وحكود باديين سوى لغود باديين كرا هداد وحكود أورورين سوى لغو أورورين كرا هداد علم كفافين سوى لغو فافين كرا هداد بين كفافين سوى لغو فافين كرا يعني سوى وسيلة لكن وسيلة داسي وذو حدين لبدا دنبا والله استعمالي كرا إذن waxa laga yaabaa islaan lagu dilay dunida dabadeeda iclaamka dunida oo dhan inuu ka warramo laakiin labaatanayada kun maanta meesha lagu dilayo ama afartankayada kun ee dhaawaca hadii la sheegana waxa la sheegaya cala istixya mar yar baa lagu sheegaya inta badan waa la dhaafaya waxaan uga dan leenahay markaa innaga wax yar haday wadanadeena ka dhacaan inagu waynu akhrina waayo dadkeena media ku jira in badan oo kabidi waa uun inay hadlaan bay garanayaan wax ka dambeeyo kale ay garanayaan ma jirto af Soomaaligu may garanayaan dabeetana wax kasta way sheegayaan statistics-ka Mareykankan maanta eegay bal waxaan idin sheegayaa homicideska dadka la dilo Mareykan gudihiisa sanadkii 2021 dadka la dilay waa 26 oo qof baa la dilay ma dadka accident ku dhintay waxa kama waramayo waa i'tidaa waa dadka la dilay yaa qoraya sida tan waa CDC waa meelaha statistics-ka kuwa maxaa la yiraahdaa tirakoobada Mareykanka kuwa qora waa dawladda iyo waxeeda 26 baa la dilay 26 imisa xabad lagu dilay 20 oo kamid ah qoraal lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay kow intaasi waa inta xabad lagu dilay 20 60 waa inta lagu dilay siyaabo kale ama midda ama wax kale lagu dilay 26 baa la dilay imisa iyagu isdilay kuwi isdilay kuma jiraan kuwa kan imisa isdilay 48 baa isdilay kow iska siiyay naftooda gooyaan naf kale gooynin 48 kun ee isdilay iyo 26 kun oo la dilay isku dar waa imisa 74 baa hal sano gudihii Mareykan lagu dilay wax sheegaya ma maqasheen shanta Soomaaliya lagu dilay ama tobanka lagu dilay laakiin idaacad oo dhan baa la qaylinay waxa la leeyahay meeshu nabad maaha keebaan nabada marka Niyuyoork muqdisho ka nabad badan maca waxa la qarxinaya waxa la dilay hadii la isu qiimeeyo la isu tiriyo sida wax loo dilay iyo inta dhimanaysa 74 intay sanad iska dilaan mid isagu isdilay iyo mid la toogtay ba inta la dilay ayaa waxa la oranayaa Mareykanku wadan horumaray oo wadan nabada waacinka waayo taariikhul kabiirkiisa iyagu inoo akhriyaan technology uu soo saaray dayax gamceed buu diray dayax uu qabtay halkan buu ka kaasum baynaga la inoo akhriyaa laakiin inta drug dealerska inta xabsiyada lagu guro inta ijraam dhacda inta dumar la kufsado inta caynkan la inoo ma akhriyo kuwa marka laga hadlayo waa per minutes and seconds baa lagu qiimeeyaa
waxa la yiraahdaa minute kasta 22 qof baa la dilaa hadda waa minute waxa laga warramaya ama intaasoo iqtisaaba dhaca qaarkood waxa statistics ay ka warramayaan per seconds la yiraahdaa intaasoo second ba jariimo noocaas ah dhacda laakiin la inaga ma warramo ayuha alxibba marka iclaamku waa khatar wuxuu khatar ku yahay waxa la faafinaya dadka loo sheegayo maxaynu inagu iclaamka ka rabnaa markaa waxaan ka rabnaa dadkeena iclaamiyiinta inay mas'uuliyad qaadaan iclaamku mas'uuliyad u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mir'atun limaadi al-umma al-islaamiyya inuu noqdo iyo wajhun lixaadirina si dhaba inuu uga warramo taariikhda islaamka si dhaba inuu uga warramo xaqaa'iqda jirta إعلامك وحن كربنا إنه نقضى أدوات التوحيد وحي دتك كل من لها فكر أهان عقيدة أهان ضدن ما أهان أما كلا قرها النقضة أما كلا دعوة النقضة أما كلا وهد لها النقضة إنك سه إعلام كأنه يتابعوا خلاف شيء وحنا جاي نتك فيلك وحيدادان وستاتستكس كورما ترى كوبيدا bal Soomaalidu waxaan ay qorto horta ayaa tira koob ku samaysaa cidda ugu badan ee Soomaaliya subscribe laga yeey waa maqashaan dhalinyaradu markay meesha soo galaan waxay ku yiraahdaan gambareelka taabo subscribe-ka taabo share gare waxa ay idin akhriyaan Soomaaliya waxan maxay u akhrinayaan lacag bay raadinayaan waayo iclaanka yar ee markad ku jirto ka soo dhaxbaxa iclaankaasi Google sanatibu ku qaataa haddii viewerskaagu ay bataan marka adigana sanatidaas sanati ka siinaya qofkani marka wuxuu rabaa sidee loo daawan karaa wax kasto qariiba iyo beena iyo wax kasta waa inuu sheegaa si markaad cinwaanka aragto madaxweynaha la dilaad sooreensaa madaxweynaba lama dilin wax kale ka warramaya waayo wuxuu rabaa inaad click tiraahdo clickta aad siiso isaga lacag baa ugu jirta qarba $20,000 qaata bishii لكن ولا تكونوا حارانا وبلاي بس لقوا قاطية ضد سكدركود وحمر كان ماشي كتير محوية إعلان كونه مسؤولية قاضي أو يجوا رجال قلبتكم أيقولون حرية مكفولة ويان إعلام كوه حدونه قرية لكن هذا وحير هذا جنتلمانس أجريمنت باكرة جنتلمان agreement aan qorayn laakiin dadku ay sameeyaan maxaa kamida mesela wadannada qaarkood waa mamnuuc in jaraa'idkooda lagu qoro page dambuulay jaraa'idkooda oo mawtaaga lagu tacsiyeeyo waa mamnuuc page-ka tacsiyada in lagu soo daro dadka istila way waxay leeyihiin waxa dhiiri gelinaysa in dadku istilo sida ogeed cid kasto kale waa tacsiyeyn kartaa laakiin dadkii isdilay haddii dadka isdilay lagu soo qoro de waxay noqonaysaa kumaan muddada ku qormaya oo dhammaantood aad leedahay hebel lagu isdilay Allah u naxariista ay soo qorayaan haddii ka lagu qoro waxay leeyihiin waxa dhiiri galaysa dadku inuu isdilo wadan kamida wadannada reer galbeed ayaa waxay yiraahdeen war dadkan isdilamaynu tijaabino maxay isu dilaan dadku sababtu waa maxay markaas la yiri la ogaan kari maayo ee dawladdu ha samayso en meel dadku isku dilaan kuwa shaneerna qofka ha loo dhiibo oo ha qoro qof waliba sababtu isu dilayo dawladuna ha qaaday inay dilka u fudaydiso dadka markaas sidii isu dili lahaayeen laakiin waxaynu qadiyadan u sameeynaa beeleen cilmi baadhisa inaynu ogaano dadka sababaha ku kalifa maxay yihiin inay isdilaan si xal loogu helo dawladda waxay furtay marka meel dadku isku dilo miyaad rabtaa inaad istishaha sida ugu fudud ee isu dili kartaan ku sheegayna kaalay balay sidee baad dil aan alam lahayn aan xanuun lahayn naftuna aad kawsin kartaa dawladda ku sheegaysa laakiin shartigu waa maxay istimaarada buuxi waxaad buuxinaysaa maxay waraaq questionnaire su'aalo ku qorayeen sababta isu dilaysa kan cayn iyo dardaaranadii deymihii bangiga ku lahaayeen wixii caynkana wixii dhaqaalaana deynaan wadanku khalkhal galin aad sii qorto wixii baa laga rabaa dadkiiba kuyuubay u qabsadeen meeshii
dowladdiiba way argagaxday dadkiiba waxay rabaan kow inay iska siiyaan dabeetana waxa la yidhi meeshana albaabada ha loo xidho projectkana ha la joojiyo waxba dambayay ka jirin walidaalika baa waxay mamnuuceen xataa dadka isdilaya in lagu qoro innagana hadday habari meel ku kufto maanta 3 habrood ba xamar ku kufay baa lagu leeyahay war maxaad ka wadaa wax kastoo balaayo ah dad un balaayo sheeg oo aan wax samaa haba yaraatee sheegaynin waqtigii ma la wadhama